cabsida dowladaha reer galbeedku ka qabaan horumarka dhaqaale ee Shiinaha ayaa u muuqda inuu dhiirigelinayo isticmaalka lacagta digitalka loo yaqaan ama lambarada ah ee qaabka elektarooniga ah la isugu diro sida kaararka bangiyada, internetka ama taleefanada gacanta. 7 ka mid ah bangiyada dowladaha waaweyn ee adduunka oo uu ku jiro Bangiga Kaydka Federaalka Mareykanka ayaa Jimcihii 9 Oktoobar yeeshay kulan ay ku gorfaynayaan habka isticmaalka iyo qaabka ay yeelan karto lacag lambar ah oo ay isticmaalaan si ay uga daba tagaan kaalinta hogaamineed ee Shiinuhu kula wareegayo nidaamka maaliyadeed adduunka. John Conliffe, gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee England isla markaana madax ka ah guddida bixinta ee Bangiga Caalamiga ah ee Bangiyada Dhexe, ayaa sheegay muddadii uu coronavirus dunida ka jiray in ay soo badanayso in dadku ay lacagta ku bixiyaan qaab aan naqad ama lacag cadaan ahayn, taasoo dedejinaysa suurtagalnimada in tiknoolajiyadu ay beddesho qaabka maaliyadeed ee adduunku hadda ku shaqeeyo oo ku dhisan lacag cadaan ah in la isdhaafsado, xitaa haddii ay tahay lacag bangiga ku jirta oo akoon la isugu gudbinayo. Kulanka ay yeesheen 7 bangi ee dhexe iyo Bangiga Caalamiga ah ee Bangiyada Dhexe oo magaciisa loo soo gaabiyo BIS, waxa kale oo ay si xeel dheer u gorfeeyeen lacagta lambarada ah iyo suurtagalnimada isticmaalkeeda. Tallaabadan ayaa la sheegay inay tahay mid ay dalalkani kaga hortagayaan uguna diyaargaroobayaan dowladda Shiinaha ee loolanka dhaqaale ka dhexeeya dalalkan oo isu diyaarinaysa in lacagteeda ay u beddesho qaabka elektarooniga ah. Tallaabada uu Shiinuhu lacagtiisa yuwaanka loo yaqaan kaga dhigaya lambarada ayaa uu ku sheegay inay xoojinayso si ay lacagtiisa ugu faafi lahayd dunida lacagta adduunka oo hadda uu doolarku ugu awood badan yahay. Bangiyada kale ee kulankan ka qayb galay waxaa ka mid ah Bangiga Dhexe ee Mareykanka, Bangiga England, Bangiga Dhexe ee Midowga Yurub, Bangiga Qaranka ee Switzerland iyo Bangiga Dhexe ee dalka Japan. Kinji Aokamura oo ah mas'uulka diblomaasiyadeed ee ugu sarreeya arrimaha maaliyadda ee dalka Japan ayaa sheegay in Shiinuhu uu dadaal ugu jiro sidii uu ugu guuleysan lahaa hogaaminta maaliyadda adduunka, isagoo u maraya habka ah inuu lacagtiisa ka dhigo lambaro la isugu diraya qaabka elektarooniga loo yaqaano. Mas'uulkan waxa uu ka digay in tallaabadaas uu Shiinuhu damacsan yahay tahay arrin ay waajib tahay inay ka cabsadaan dalalka ay Shiinaha loolanka dhaqaale ku jiraan. Marjaan Tube.